iyadoo ay dhawaan ahayd markii bahda warbaahinta ka howlgashay gudaha magaalada Ceelaf Weyn ay ka sii daayeen baaqala dhaan ah oo ku wajahan xaaladda nololeed ee ay ku nool yihiin qoysas danyar ahna barakacayaal oo aan lahayn hoy ay ka galaan dhaxanta iyo kuleelka cadceedda iyagoo markii hore ay ahaayeen dad kadna yartahay dad xoolo dhaqato ahaa isla markaana ay gebi ahaanba ka xaalufisay xoolihii ay dhaqan jireen abaaraha baan ay ka jira deegaanada degmada Ceelaf Weyn ayaa waxaa baaqaas qaale dhaanta ka dhiidhiyay isla markaana ka soo jawaabay hablaha bahood ee ku nool qurbaha iyagoo 8 qoys oo kamid ah qoysaskaas danyarta ah waliba kuwii ugu jilicsanaa u dhisay 8 sanduuqadood oo ay u isticmaalaan hoy ahaan iyagoo hablahaas u soo wakiishay dhisida sanduuqadaha Saalax Cawad Caateeye isagoo arrimahaas ka warbixinayana waxa hadaladiisii kamid ah kulli saka warhaysan waxaanu wadnay sanduuqado ay soo direen jahriyada gabdhaha bahood ee degan dalka dibadiisa sanduuqadahaas oo inta soo gaadhay ay tahay 8 xabo waanu gaarsiinay dadkii magacyadooda idin soo gaareen waanu noo dhisnay 8 diba waa dhisan yihiin allahumma dadkina sida aad arki doontaan iyaga oo idin la hadlaya baa arki doontaan 8 sana soo gaaray 8 waxaanu u qornay 8 aanu isnii markaanu dadkii xogxogaysanay ee agaagnay dadkii dhaxmarnay 8 aanu isnii ugu liiteen oo waliba ay ku jiraan dad waaweyn oo daaho goblana sida laba oday iyo gabadh kale ay ku jiraan waxa ku jira dad waalan waxa ku jira dad aad u faqiir ah oo liito xaasasa sanduuqadaas kulay dhibtoodu way iska badan tahay 8 meel qof ama 8 guri oo yar oo bulshada dhexdiisa waa garan kartaan hawsha ay leedahay iyo dhibaatada naga gaadhay haddana kulay aad baan ugu mahadnaqaynaa wixii soo bixiyay dadka qabaalaysan ee walaalahooda wax soo taray waana loo dhisnay waana gaarsiinayna way idin mahadnaqi doonaan oo arki doontaan waana mikrofoonkan ku soo dhaweyn doonaa qof walba isagoo sanduuqadiisii jooga insha Allah ta'ala waxa iyaguna dhinacooda ka mahadnaqay dadkii danyarta ahaa ee loo dhisay sanduuqadahan una mahadnaqay hablihii ka dhiidhiyay xaaladda nololeed ee ay ku nool yihiin waxana hadaladoodii kamid ah anigoo Ismaan Faarax warsame ah hablihii jaaliyada ahaa ee bahood sanduuqada ay noo dhiseen mahad Ilaahay oo ballaaran baan u naqay waxaan u mahadnaqayaa hablaha waxaa noo qabtay sanduuqadaha noo dhisay سو خير بان ومهدنقين على حسن هدانا مهدنقينا او مهدنقيا قبليه دباتدي ادنا هيستي نغا خرقاday naga furfuray baan boqolkiiba boqol mahadnaqaya waanaga hoos joogno ku jifa waanaga kulladno ku gabaanay alxamdulillah rabbil alamin wixayna soo tari karaana waa u baahanahay boqolkiiba boqol waa mahadsan anigoo ah xaawageel Cabdulle waxaan u mahad celinayaa hablaha bahood ee u soo diray sanduuqada meeshaas oo loo dhisay waxay ka arkaan shaashada aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa una ducaynaynaa haddaan nahay Faadmo Faarax hablihii soo siiyay waxa wanaagsan ma baan anoo xasan rooble ah sanduuqada hablihii noo dhisay iyo kuwa noo soo diray iyo kuwa noo dhisayba aan ugu mahad celinaynaa oo wixii kale ay noo qaban karaan ay noo qabtaan hablaha bahood ee qurba joogka waxa weeye gabdhihii la siiyay ee noo dhisay sanduuqadaha joognay siigada waa mahadnaqaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim ninkana waa Shucayb farxaan baa laakiin Shucayb baan u qoray waa ina Maxamed Jaamac Quduf waan xanuunsanaya sanduuqadiisina waa tawaan u dhisnay Axmed Anwar TV-ga caalamiga Soomaali Cable Ceelaf Weyn